waxaan leeyahay cilmigaa la kala qaataa culture-ka lama kala amaanaysto walidaalika had iyo goor waxaan tilmaamaa nukat ay ka sheegaan ninkii gandi la odhan jiray mahatma gandi nin aqoon-yahana buu ahaa oo waddankiisa rabay xornimo inuu horseedo oo aragtidan pacifismka la yidhaahdo maxay yidhahdaan pacifism in aad si nabadgelyo aad dagaal ku gashid aragtidaa dunida ku faafiyey mahatma gandi aqoon-yahan buu ahaa laakiin wuxuu ka santaagi jiray dhaqan cid kale inuu qaato saa awgeed wuxuu xidhan jiray laba go' oo cadcad iyo ul buu qaadan jiray labada go' diintan uu haystay iyo dadkiisu waxay dhaqan u lahaayeen go'a hoose marka la guntado inta la duuduubaabaa dabagelis xagga dambaa la geliyaa marka labada din dhexdooda inta laga saaro go'a ayaa sidan bambarka carruurta loogu xidho kale ayuu u xidhan yahay dadka waaweyn baa saa u xidhan waxay sheegaan isagoo wixiisaa xidhan buu ingiriiska iyo meelahan yimi wuxuu rabay inuu boqortooyada la kulmo oo uu ka dhaadhiciyo xorriyadda waddankiisu inuu helo markaa ushiisiina sita labadiisii go'na sita waxay dhahdeen mid ingiriis baa oo taygiisii ku bakhtiisan oo xidhan baa wuxuu ku yidhi what is this waa maxay maradana dabada gashatay ku xidhantay maxay tahay gaandiintaanu maradiisa ka jawaabinba wuxuu weydiiyey what is this taygii uu kana xidhnaa ayuu yidhi kani waa maxay ninka wuxuu yidhi this is necktie kani waa qoorta bahalkii lagu xidhanayo waa qoor ku xidhad and this is back tie buu ku yidhi markaa yacni maxaa ka dhigay adigu maradaad qoorta sudhatana wax musallama anigu taan dabada sudhayna maxaa wargeliyey hadba qoortaad mid iskaga xidhaye anna halkaan iskaga xidhaan buu yidhi tanna back tie baa la yidhaahdaa tanna necktie baa la yidhahdaa maxaan uga dan leeyay waxaan uga dan leeyay kaljaradu maaha cilmi hamoodin markaad u timaado iyagoo ama dhafoor xirtay ama marada jeexjeexan qaatay ama kan qaatay ammaan maaha it's a culture waa dhaqan ay iyagu yeesheen adiga waxa lagaaga baahanya waxa weeye inaad dadnimadaada ku faantid dhaqankaaga inaad ku faantid waxaad leedahay inaad ku faantid maaha inaad maydhantid oo kullu naaciq qof kasta oo qayliyey wuxuu sheegay inaad raacdo maaha waa inaad qof bini aadama oo jira oo dhaqan iyo afla aad ahaatid waa inaad luminin caqaa'idda iyo valueska aad aaminsan tahay value islaamnimadu waxayna fartay in ballanka la oofiyo in run la sheego in dadka si fiican loola dhaqmo halkan markaad timaado inaad wixiiba ka baxdo been daldashid oo ballanka ka baxdid oo waxaad doontaad samaysid dee saasi ma aha saas waa adoo maydhmay saasi waxay leenahay waxbaro waa marka koowaad ma raba inaad xamaal noqotid waxaan rabaa qof waxbartay oo xogsan karaya inaad noqoto at the same time waxaan rabaa inaad noqoto qof mabaadi iyo diin xambaarsan qof dhaqan iyo dadnimo leh qof wax rumaysan inaad noqotid haddaba waxaan leenahay dhallinyaro inaad wax barataan 3 challenge oo waaweyn baa idinka hor iman doona 3duba daawo way leeyiin haddaad ku tala gashaan challenge-ka koowaad waa challenge-ka shubahaadka ah in diintaada lagaa shaki geliyo dhaqamo cid kalena lagu ammaano lagu qurxiyo lagu tasyiiniyo la ammaano cid waliba waxeeda markay ammaanayso waa cadaalad iyo waa xuquuq iyo wax kale ku dheehdaan laguma yidhaahdo iminka marka waddan lagu duulayo miyaa la yidhahdaa waxaan rabnaa waddankaa inaanu qabsanno oo shidaalkiisa iyo xoolihiisa soo qaadanno mise waxaa la yidhaahdaa waxaa la rabaa dadkaasi in dictatorka laga turo xorriyadda la gaadhsiiyo xorriyaddani waxaan waa afbeenbeen cidna xorriyad lama gaadhsiina cid walba waa la soo boobo waa la tumay idan waa suuqgeynta waa dadka si looga dhaadhiciyo waa inaan la odhanin war dowladda hadday imika inta istaagto tidhaahda waddankaa waxaan rabnaa wixiisoo dhan inaan soo qaadanno soo la odhan maayo war nimankani may waasheen laakiin hadday yidhahdaan waanu soo horumarinaynaa xataa markii layna gumaysanayey lama odhanin waanu gumaysanaynaa waxaa la yidhi maxay isticmaar colanku waa maxay waa to cultivate waa beerista waa horumarinaynaa waa layna soo horumarinayaa baa la yidhi xadaaraddaa layna soo hadda waa lagu gumaysanayaa gumaysigiiba waxa loo bixiyay inay tahay horumarin idan waxaad jaamacaadka iyo meelaha kan iyo cultureka ugu tegi doontaa
mabaadi' badan oo magacyo kala wadata xaqiiqadu say wax kala tahay idan shubhada waxa saara bay culimadu yidhaahdaan daliil caddayn baa saarta qof lagama shakisiiyey ilaahay jiritaankiisa haddaad tidhaahu salaada tuko dee muxuu tukadaa waxaabuu isku hayaa ma jiraa mise ma jiree idan waa inaynu barannaa tadciimkii waa inaynu yeelannaa caqiidadeena inaynu toos u baranno kaasi waa shayga koowaad shayga labaad dee ninka dhallinyarada waajihaya waa taxaddi alakhlaaqi waasuluuki jaamacad ama iskuul baa tegi doontaa iskuulka dadkao dhammi wuu isku dhex jiraa inamo iyo hablaba dhallinyaro caafimaad qabta oo wada xooggan oo qaawan baad dhex tegi doontaa maada tafcal maxaad yeeli hablo adiga ku saloolanaya inamo ku saloolanaya meesha oo dhan oo la isku sii daayey oo dhallinyaro dad wada oo caafimaad qaba xooggoodu u dhan yahay idan waa taxaddi akhlaaqiya waa shahawaati nafs dawadeedu waa alcifa wa taqwa allah nebi yuusuf baa meel ka adag galay oo gabadh isku dayday inay iqraa ku samayso inay duufsan karto oo diiday oo xataa markii dambe isku dayday inay xoog ku kufsato ilaahay qur-aanku inoogaga warramayaa nebi yuusuf yaa wuxuu yeelay وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي الباب بدأ يحرتي با إلى هيري دبيتنا وهيسكو دايدين كفصته لكن وهيسكو دايين ومحي كبد بادي كرو إلهي أحصص ناضه إلهي وحو إذن ليه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وارهد ورسنادان كوا أنقور هلينني إلى ينت إلهي كغني يلي لأن يرى وحلو إلى ما قورسو أما الصون وإلهي كعبسو وكحرا مساجد يم إله الله كعبسك كهليسو haddaad gaadhi kaxayso intaad shidaal ka buuxiso waad tidhahda weligiibuu iska soconayaa ka warran meel dhexe markaad marayso unbuu surbacaadi doonaa soo maaha ayuunbaa wax waliba ka dhammaan doonaa laakiin wuxuu u baahan yahay markaad aragtay inuu dhammaanayaba inaad shidaalle ku weecsato maxay kaga shubatid aad zaadka qaadatid masaajidda iyo dhulka iimaanka lagu hayo iyo muxaadaraadka iyo meeshani waa meeluu qofku zaad ka sii qaato markaad aragto weelkaagu inuu sanqarhayaba in xagga beleda lagu sii hayaba kaalay masaajidda iyo cibaadada dhulka lagu haya khayrka zaad cusub baad qaadanaysaa muddo maxaa laynoo yidhi toddobaad kasta salaad jimce tuko oo khudbad soo dhegayso waa qofku inuu zaad helo waa inaad hesho sahaydii aad toddobaadka ku jiri lahayd ee kusii joogi lahayd waa inaad heshaa meesha tanaad joogtaan marka waa meel khatara iskuullada iyo jaamacaadka waxay yaallaan noloshaasi rag iyo dumarba la ysku daray rag iyo dumarba siday u dhowrsanaan karaan waxay dhowrsanaan karaan hadday xidhiidhka ilaahay la leeyihin uu xooggan yahay xidhiidhka alle la leeyihin hadduu xooggan yahay iyo hadday u suurto gelayso inay guursadaan waalidiintana waxaan leeyahay waar guurka fudaydiya oo dhaqankii hore ka daaya intaa fudaydin kartaan fudaydiya intaa fudaydin kartaan fudaydiya oo inan iyo inanba inuu guur xalaala helo xataa haddaanu korin karin 2-3 sannadood ee jaamacadda la wado xataa haddaad doontaan waxba ha dhalina laakiin waxaa la rabaa inaad dhowrsanaato oo qof muslim oo dhowrsoon sidaad u noqon lahayd in la tijaabiyo masalada saddexaad ee dhallinyarada ka hor timaada waa faqriga ardaynimada iyo faqrigu way wada socdaan dhallinyaraduna inta badan waxay sidhaahdaan bal horta sanadku yaro tuur shaqo oo yaro xoogso dabeetana mushaharkaasunbaa la macaanaado halkaasunbuu ka wadaa hadhowna 5 ciyaalunbuu dhalaayo wuxuu is idhaahdaa waar jaamacadna ku noqon kari mayside iska xoogso oo sii wad buu is idhaahdaa waar inaad sanad iyo 2
iyo 3 faqri ku noolaatid iyo inaad noloshoo dhan xamaal iyo faqri ku dhammayso iyo maroon inaad noloshoo dhan xamaal ku dhammaysid iyo inaad ku tala gasho sanad iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 inaad wax baratid laakiin aad hadhow mustawa fiican ka bilowdid dhalinyarada waxaan leeyahay faqrigu akhlaaqdiina iyo diintiina ayuu xumaynin dhalinyarada bar baa markay faqriday tuuga u dhaqaaqay dhalinyarada bar baa markay faqriday suuqa madow u dhaqaaqay dhalinyarada bar baa markay faqriday mukhadaraad iyo balya baas u dhaqaaqay oo quick money war lacag degdega xaggee laga helaa bay tijaabiyeen dee waxaa laga heli karaa daroogo iyo suuqa taana maalmaha hore la soo jiidanayo maalintii 3,000 4,000 soo hel bishii horeba 150,000 buu helay waa ku soo waday aakhirka xabsigaad ku dambaynuun tuug wuxuu maanta qaado berri qaado la qabay unbaa xigi saanka maaha daa tuugada wadda uun maalin iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 100 markaad baxsataba aakhirka waa lagu qabanayaa uun la qabay baa xigi doontaa waxaan uga dan leeyahay war suuq madoobi maaha wax la galo darooga wax la iibiye maaha tuuga wax la sameeye maaha qof identity la noqo soomaalidii hore waxay ku mahmaahi jirtay waad baahatay looma bahala cuna bay odhan jireen baaha ay hayso dabeetana wax walba waan iska cunayaa maaha caqligal bay odhan jireen waanu baahano waxba waa weyna suuqaanu iska gelaynaa waxaanu doonaa baanu samaynaynaa noloshu saa maaha waxaan leenahay waxaynu u baahannahay inaynu dullinimada ka baxno madalla weeyaan inaad mukhadaraad iyo suuq madow iyo maxaa la yidhahaa tuuga iyo waxaan dhaamin inaad ka shaqayso ilaahay qolu qur-aanka ku tilmaamay yaxsabuhum اljaahilu aghniyaaa min atacafuf qole la yidhi haniyadu waxay moodayaan dad wax haystaa siday u dhowrsoon yihiin daraaddood ayuha alaxiba waxaan idin leeyahay dhallinyaroy 3daa challenge baa taagan meesha tan inaad wax noqotaan ka koowaad waa khatar oo diintiinu khatar ku yihi ka labaadna akhlaaqdiinu khatar ku yihi ka saddexaadna dhaqaalihiina iyo mustaqbalkiinu khatar ku yihi 3daba haddaad ragtiin waa ka bixi kartaan haddaad tale iyo go-aan iyo ilaahay oo aad tala saarataan yeelataan 3daba waa ka bixi kartaan haddaad rabtaan adduunkan inaad markaa wax ku noqotaan facalaykum bilcilm haddaad rabtaan aakhire inaad wax noqotaanna facalaykum bilcilm labada goorba waa cilmi laakiin cilmigii halkan yaalay dhibaatadaasaa la socota dhibaatadaana waxaad u baahan tahay inaad challenge garayso oo qof diin iyo akhlaaqla aad noqoto waalidkana waxaan leenahay war dhallinyarada dhibtaasaa hortaagan maadaama dhibta intaa leeg ay hortaagan tahay isku day aqoonta inaad u fudaydin karto oo dayntan iyo waxaan ka daysi oo guriga joogo oo wax ka cuno isku day inaad dhistid oo aanad meeshaa un geynina inuu diintiisa iyo caqiidadiisa bari kartid isku day baynu leenahay haddii loo guurin karo wiil iyo gabadhba in loo guuriyo isku day baynu leenahay in laga ilaaliyo dadka xunxun iyo suuqa mukhadaraadka iyo beliya baaskan in laga ilaaliyo idan challengeskaasa hortiina yaalla haddaad waalid tahay iyo haddaad nin dhallinyaro a tahay labadiinaba wuxuun baynu kaga bixi karnaa markaa iyadoo a ilaahay ku xidhanno oo cibaadada laasimno oo ka mid noqonno kuwuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam 7da aakhiro carshuraxmaanka hadhsan doona waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro oo cibaado ku koray ama uu nebigu lahaa ilaahay wuxuu la yaabaa nin dhallinyaro oo aan inxiraaf iyo weecweecad lahayn ina rabbaka la yacjab lishaabi laa sabwata lah wiil dhallinyaro aan weecasho lahayn waxaynu u baahanay inaad noqotaan kuwuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam 5 horteed ka faa'iidayso nolosha ka faa'iiday intaanad geeriyoonin caafimaadka ka faa'iiday intaanad xanuunsanin firaaqa fursadda ka faa'iidayso intaanad mashquulin dhallinyaronimada ka faa'iiday intaanad gaboobin waxhaysadka ka faa'iiday intaanad faqrinin su-aasha aakhire lagu weydiin doono ee ah
war dhallinyaronimadaadii maxaad ku bixisay inaynu ka hortagnaa baynu u baahanay. haddaba si aad waalidkaana uga farxisid oo qofku rajaynaya aad u noqotid, aakhiradaadana aad u hagaajisatid, adduunkaagana uu macno u yeesho, bulshadaad la noosha inaad waxtar ku noqotid. ilaan iyaba maal bay ku geliyeen iyo wanaag, waxay kaa rajaynaya inaad waxtar noqoto. bulshadaad la nooshahayna aanad cib'un calayh, qof ku culus noqonina waxtaraad u noqotid. فعليكم بالعلم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.